Assalaamu calaykum kusoo dhawaada 7 News Soomaaliya waxaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa xog ku saabsan in madaxweyne Farmaajo uu mar isku dayay qabashada madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe xilli uu ku sugnaa magaalada Muqdisho balse arrintaas ay fashil ku dhamaatay kadib markii uu talaabadaas si adag uga soo horjeestay ra'iisul wasaare Khayre balse intaan u gudagalin faahfaahinta warkan haddii aad ka mid tahay saaxiibada nagu cusub fadlan subscribe saar adigoo furanay gambaleel si ay dhiirigelin noogu noqoto aadna u heshid wararkeena iyo macluumaadkeena ugu dambeeyay rugta ganacsiga Jubbaland Shaafi Rabi oo wareysi siinayay SSTV ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uu mar isku dayay inuu madaxweynaha Jubbaland qabto oo uu xiro xilli uu ku sugnaa magaalada Muqdisho balse arrintaas uu si aad ah uga hor yimid ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre Shaafi Rabi waxa uu sheegay in ra'iisul wasaare Khayre uu madaxweyne Farmaajo u sheegay in aysan suurtagal ahayn qabashada Axmed Madoobe oo weli mandate haysta xilligiisuna weli dhamaan gudoomiyaha rugta ganacsiga Jubbaland waxa uu sheegay in ra'iisul wasaare Khayre oo u sheegay madaxweyne Farmaajo in aysan suurtagal ahayn qabashada Axmed Madoobe oo aan weli xilka ka digin wuxuuna kula taliyay in la heshiiyo maamulka Jubbaland isla markaasna la dhameeyo khilaafka kala dhaxeeyo balse taladaas uu madaxweyne Farmaajo ku gacan sayray madaxweynaha loo geynayay oo ragaan saaxiibanahay oo senator qaarkood yihiin oo galguud ka soo jeedaan in madaxweyne ay kula taliyeen Axmed hadduu kugu dhow yahay qabo qalbi dhagax baa shalay qabatay cid mains oranin Cabdiraxmaan Cabshakuur baa weerartood kabaha ku aastay Axmed hadduu xamar kula joogay qabo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre wax badan baan u mahadceliyay anigu ani saaxiibka shakhsi away maxaa yeelay fikirka uu diiday Xasan Cali Khayre wuxuu yiri war ninkan ciidan 100 nin ku dhowna uu wataa ciidamo kale oo magaalada xamar joogana way ilaalinayaan siyaasadda dadka Soomaaliyeed ee Muqdisho degana arinta gacan kuguma siinayaan mandate buu haystaa oo weli muusan dhicin arinta ka joog arinta nimanka senataradii ay kugu boorinayaan ka joog annaga meeshii aan 20% isu tanaasulid 20% aynu tanaasulo 5 ka tanaasulo kana ka tanaasulo madaxweynaheena aynu wada shaqeyno muddada aynu isla wada dhamaysano waxaan kala kulannay fikirka ka duwan oo colaadeed maalikii dambe Axmed ra'iisul wasaarihii iyo dawladii ragii aan wada sheekeysanaynay waxay yiraahdeen warnimayo idinkoo nabada mar noqdo deegaankiina ku noqdo marka waxaan hubaa inuusan madaxweynuhu diyaar u ahayn marna inuu Jubbaland la heshiiyo haddaan wax kasta uga tanaasulo Axmed kurkiisa haddaan geeyno madaxweynuhu raali kama aha kamana tanaasulayo asagoo Jubbaland oo burburtay usan arag marka colaada noocan ah aad ku dabcan ku eedanaysa madaxweynaha federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma wax Jubbaland iyo Axmed kaliya ku ag baamse waa wax isteediyada Soomaaliya oo dhan ay kala midaysan yihiin anu isteediyada Soomaaliya oo kale kama hadlayo isteediyada Soomaaliya iyaga isteediya ka hadli anigu waxaan ka hadlayaa arinta Jubbaland ma ka hadlayaa arinta Jubbaland mar hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku galgalan lahaa oo uu jeeri lahaa annaga awoodda asagu u leeyahay dawladnimo iyo ta madaxweyne haddii ay u suurta galayso haddii uu jeeri karo biyo muusan u kabadeen waxaan ii kaada halkaa waxaan aad ugu mahadcelinayaa Cabdiraxmaan Faroole senatorka madaxweynaha Puntland ka ahaan jiray haddana senatorka iyo Jurile iyo wasiirra xataa dawladda federaal ku jirto oo Jamaal Xasan uu ka mid yahay qorsheynta raggaasi inay gurmadeen markaan anagu xamar joognay oo runtii ay arintan ka dagaalameen oo ragga haddaysan jiri lahayn arintu ay sidan ka foolxumaan lahayd waa hagaag bal halka intaynaan mudana ka bixin ma jira wax qodobo ah oo madaxweynuhu si gaar ah waaga idin kala hadlay oo idin yiri waxa sameeya oo idinku aadiideen oo macnaha dastuurka ku salaysan horta wax sharciga dastuurka anagu mid aan ku sheegay nuur anagu waxaan sharciga Soomaaliya ay ku heshiisay ka baxsan hadda horeyna ma aqbalin haddana aqbalmayno madaxweynuhu ma aha ciidankii ma haysto midowga Sovieti ka Mareykankana ma haysto dalkana wuxuu ka soo baxay arrin burbura oo dhibaato ah canshuurta laga qaado islaamaha iyo dadka ganacsatada ee bakaaraha lagu dhibay lagu laban laabay madaxweynuhu yuusan u adeegsanayn inuu Jubbaland waqtigu kaga dhamaado madaxweynaha waxaan u soo jeedin lahaa hal sana oo dhiman si uu sharaf iyo karaamo uga tago fiiri wadankan hadda aan joogno Uhuru Kenyatta maal dhaweed waxaan arkay cinwaan ay ku qoran tahay
forgive me miyay ahayd ciwaanku ka dhigtay aan iscafina ma aha kaale ee cafiya waa siyaasiyiintii ka soo horjeeday waa kuwa doorashada isku qabteen madaxweynaha dadkan Soomaali weeye in kastoo madaxweynuhu markii uu campaign garaynayay Jubbaland muuna tagin Puntland muuna ka campaign garayn taariikhda ma yaraysaa xilligii ololihiisii ololihiisii muusan Jubbaland marna cagiisa galin Puntland cagiisa muuna galin anu waaga waan la yaabanaa waxaan lahaa maxaa dheeraada oo doorashuba ninkan u socdaay dadkii madaxweynenimada rabay oo dhan Kismaayo noogu yimideen maxaa jira oo uu madaxweynuhu u diidan yahay waxaa hadda u dhiman madaxweynaha waqti sanada haddii calafkii uu soo celiyo annaga waxba kama qabno Jubbaland midnimadeedu sidan ay ku jirtaa dawladaha adduunka fiiri Mareykanka oo kale adduunku inuu nabad ahaado Mareykanka waxba oo ma shirkadihiisa hubka inay iibsadaan buu rabaa iyo dalalka faraha badan ee hubka sameeya sida China iyo Ruushka iyo waxay rabaan inay qalalaasi adduunku marba meel ka jiro khaliijka marba diyaarada la gado hub la gado anaga maxaa Cabdullaahi Farmaajo inuu soo noqdo 4 sano dambe jiritaanka Jubbaland baa ku jira waxba kama qabno waa hagaag waa warcad maxaa marka aad soo koobto ujeedada rasmiga ee ka dambaysa in madaxweynuhu uu heerka ka istaagay Jubbaland maxay tahay baad isleedahay horta madaxweynaha runtii talaabooyin xoog leh oo uu qaaday baa jiray oo مثلا magaalada Muqdisho gudoomiyaashii uu kala badbadelayay ninka ugu qiimaha badnaa ee Thabit ninka ugu qiimaha badnaa ee gudoomiyaha gobolka Banaadir aanu saas leeyahay dhalinyaro ahaa nin ay bulshadu jeceshahay buu ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo siyaasi ah oo ka aragti duwan kaliya ka aragti duwanaan baa la weeraray oo gurigiisa lagu weeraray asagana la dhaaway staafkiisana la laayay koonfur galbeed baa ogeydood maqlaysay sida loo galay ayadii musharaxeedii talaabooyinka madaxweynaha marka waxay ku kalifaysay way oo Jubbaland adintan ugu sameyn laada taa horta waxa daafica ugu weyn tan kale ee aan ilaawin waxa weeye madaxweynaha dad baa nasteex intay soo dhigaan bay riixayaan oo bareeshar garaynayaan dalka fiiri ma xoreysna shabaab baa dhinac walba yaa magaalooyinka yaa ka kulaalay qaraxyaa maal walba dhacayo dhimasha maal dhowto jaraa'id baan ka akhrinayay muddadii 3 sanadeed maxaa Cabdullaahi uu joogay 13,000 iyo dhowr boqol oo qof baa magaalada Muqdisho lagu dilay ama qaraxa ku dhinto ama dadkaas waa Soomaali wayna damqayaan waa ehel waa qaraabo waa saaxiibo gobol u gudbayay ma jirto xildhibaanada baarlamaanka dhexdiisa ka hadlayo Jowhar 10 jeer baan safar doorashadii hore u maray oo dhulka maray qaar baa lahaa haddana diyaarad baa la raacaya in waxa lagu mashquulay ahayd maanta fiiri 3 sano processkii socday 32 kilomitir wadooyin baa la dhisay hadda waxa leeyahay lacagta waa in la joojiyaa oo World Bankiga ay joojiyaan inta loo adeegsanaya lacagta wixii horumarin loogu talagalay magaalooyinka baa la rabaa in siyaasad loo adeegsado saxna ma hadaag waxaa jira niman siyaasiyiin oo reer Jubbaland oo qaar waliba halganka ay ka soo qayb qaateen Jubbaland lagu xoreynayay tusaale aan xusi karo Cabdinaasir iyo maaragtay Cabdirashiid arintan Jubbaland dabcan iyo systemkan hadda wuxuu socdaa aad bay uga soo horjeedaan Kismaayo idin joogaan maxaa iyaga xaalkooda maxaa meel khilaafkaas u yahay adeer khilaafka waa tii Cabdi Fataax xaqil yar uu ka sheekeeyay 30 nin baa lagu istaajiyay rag far badan Sheekh Shakuul baa soo noqday oo musharaxa Cabdi Fataax baa soo noqday oo musharaxa Professor Marsheeya soo noqday oo musharaxa waxa soo noqday Sharaay oo musharaxa rag badan oo musharax ku nimankan aad sheegi lamida soo noqday labada nin waa labadii nin ee Jubbaland dhisatay marna inay dumiyaan cala casho timo ka soo baxday way taa ku walwal macnaha waa ragii Jubbaland dhisay marka mana duminayaan ma duminayaan way laakiin soo culays idin kuma haysay in ay Kismaayo joogan madaxweynayaal shaqo Kismaayo muwaadiniin way dalkoodii jooga oo maamulka sheeganaya madaxweynaha oo maamulka ka aragti duwan way
aad baad u mahadsan tahay mudane shaafi xagee maanta maraysaa jubbaland marka marxaladda maanta ay ku sugan tahay ama maanta iyo shalay oo kale haddii la isbarbar dhigo jubbaland dagaal bay ku jirtaa maanta iyo shalay dagaal baa dhacay degmooyinka jilib iyo u dhexeeya jamaamuu dagaal ka dhacay rag baa ku dhaawacmay ragna wuu ku dhintay jubbaland xuduudaheeda iyo madaxweyne ku-xigeenkii baa geda wareegaya oo inuu degmooyinkii rabshada la geliyey uu dib u xaliyo yaa u wareegaya madaxweynihii baa puntland jooga oo reer puntland mar hor iyo mar dambe waan u mahad celinayaa waa gacanta iyo garabka ugu weyn ee shalay jubbaland garab istaagee dhisay ilaa maantana heel iyo hoor nala garab taagan qofka haddaadan waxba tari karin waxaa la yidhaahdaa shukran reer puntland waxaan leenahay waad mahadsantihiin madaxweyne iyo wafdigiisa xaggay jiraan qaarkoodna halkana iman doonaan qaarkoodna wasiiradiisii iyaguna kismaayo kusoo noqon doonaan xukuumad cusub baa la dhisayaa raggan qaar baa lala heshiinayaa jubbaland khadkii loogu talagalay ayay ku socotaa waxayna u gudbi doontaa haddii la yidhaahdo barul amaan waay safarka hadda aad sheegtay madaxweynuhu ugu maqan yahay iyo waftigiisu puntland muxuu daaran yahay haddii aad qodob iyo laba nooga sheegto madaxweynuhu wuxuu u tagay puntland waa state hooyadii federaalka ah aan saaxiib dhow nahay dana fara badan naga dhexeeyaan istiraatiijiyadaha 2020 iyo doorashada iyo qaabkii loo gal lahaa iyo qaabkii laga yeeli lahaa ajendayaasha hor yaalay iyo kuwa ka fara badan buu u tagay madaxweynuhu waaya cunaqabatayntii la saaray jubbaland xagee ku dambeysay waxaan ka warhayaa in la yidhi kismaayo iyo way isu furan yihiin dhobley cunaqabataynta adeer anu waxaan samaynay cilmi baaris waan idiin soo diri 7 bage ka kooban oo cunaqabataynta dhibka ay saartay Gaza oo Falastiin ku taala yuhuud baa cunaqabatayn saartay yuhuud waa dalkay iyo waa dadkay colka ahaayeen annaga dadka cunaqabataynta na saaray waa madaxweynihii habeenkii la doortay kismaayo aan seexan weynay waa taariikh madow oo u qormaysa ina farmaajo taariikh madow oo u qormaysa hooyada dawada halkan looga qaadayay dawooyinka aan laga helaynin kismaayo ee diyaaradda subaxii loo saarayay ninka joojiyey islaantii u dhimatay iyo taa u ildaran iyo hooyada uu ku rafaadiyey inuu yidhaahdo dhoobley haddaad ka duushid xamar mar maxamed cabdulaahi farmaajo waa taariikh madow oo u qoran ilmahanaga ilmihiisuna ay xusnaan doonaan cunaqabatayntii jubbaland sidiiba u saaran tahay cunaqabatayno kuwa aan ahayn oo saaran baa jira oo uu ugu talagalay maxamed cabdulaahi farmaajo inuu jubbaland ku waxyeelayo waayahay dhaqaalihii qoondadii ay ku lahayd federaalka jubbaland ma ka heshaa mise kama hesha waay wax idin soo gaadhaa ma jiro waaya aad baad umahadsan tahay mudane shaafi bal arrintan haddaan kusii nagaano cunaqabataynta wasiirka duulista iyo hawada waa nin reer jubbaland ninka maaragtay inta badan la yidhaahdo cunaqabatayntan uu qayb ka yahayna waa isaga markii laga soo tago maaragtay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa la sheegay in ay amarteen in uusan kismaayo iman karin inta cunaqabatayntaan la bilaabin ma la is odhan karaa khaladka idinkaa bilaabay wasiirka horta wax dembi oo leeyahay ma jirto ani saaxiibkay maxaa cabdulaahi Omar waa saaxiibkay inta in laga dembi oo leeyahay ma jirto wixii la amray madaxtooye amartay kaliya fulinaya annaga waxaa la joojiyey adiguna aad og tahay doorashadu muddadii yareyd ay socotay Puntland way joojisay xidhiidhkii qaldanaa iyo diyaaradihii qaldanaa abaabula baan 3 maalmood anagu joojinay maxaa cabdulaahi dalkiisa cid ka joojin kartaa ma jirto waa muwaadin waa nin waliba aqoon-yahan oo wanaagsan cid ka joojin karta iyo cid ka joojisay midna ma jirto waa hagaag waxaan intaa nuurow wafdi baan maal dhaweyto 8 xubnooda oo xildhibaano isugu jira laba wasiir macalin maxamed iyo wasiir inshaar baa ku tagnay countiga maamul goboleedka Gaarisa
waxaa jiray bishii maaj 17keedii haddaan qaldanayn heshiis Soomaaliya iyo Kenya halkan lagu galay oo in 4 custom la sameeyo xuduudda oo ganacsiga la furo tii annagoo noolaynayna oo ka daba tagaynaan tagnay countiga Gaarisa runtii oo aadna looga soo dhaweeyay Cali Qorane Bunow baan aragnay aadan bare ducaale halkan ku aragnay waxaan rajaynaynaa in mar dhow cunaqabataynta Jubbaland saaran oo dhinacyo fara badan oo hadda faahfaahin karin ka saaran inay ka bixi doonto insha Allah waa hagaag mudane aad baad mahadsan tahay waxaa intaan ka warhaya 2 jeer adigoo safar ka yimid in lagugu xanibay baan ogahay garoonka magaalada Muqdisho marar ay soo yeedhay in laguba xidhay sidee u dhaceen arrimahaasi maxayse la xidhiidheen in adiga lagugu xanibo baasaboorkina laga hakiyo garoonka Muqdisho ku sugan horta nasiib wanaag safarka aniga li xanibay waxaan diyaarada isla raacnay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shir shaqaan u soconay labadin waa isku diyaarad baan saarnay isku diyaarad baan saarnay waxaan tagnoon ka qayb galay shirkii Belgiumka oo dhinacana siyaasadda looga hadlay dhinac iyo amniga dhinaca dhaqaalaha looga hadlay markaan soo laabanay anagu Sweden baan u gudubnay Sweden markaan u gudubnay safar dheerood aan Istanbul transit ku ahayn baan soo galay airportka Istanbul markaa baan shir jaraa'id ku qabtay shirka jaraa'ideen ku qabtay wuxuu ka hadlayay wax fara badan laakiin waxa ugu muhiimsanaa ujeedadiisu ahayd canshuurta ganacsatada cabanaya aanu xogayaa guud ee ruuta ganacsiga Soomaaliyeed baan ahay subaxii email hadduu ku soo dhaco emailkayga hadduu warqad igu soo dhacdo cabashooyin ganacsato ama magacooda qarinaya ama aan qarinaynin oo dhibka loo geysanayo oo bakaaraha jooga oo xamar jooga oo hooyo la dhibaya ama ganacsado la dhibayo tabar yar ama nin gaadiidley ah oo badeecayntu ka soo qaaday dekada 2 maalmood bakaaraha aan gaari la inaan ka hadlo xaq baan u leeyahay ragga aan wada shaqeynay ee magaalada xamar joogana aan u cudur daaro inayna hadli karin seed uga hadashay arinta aad baad mahadsan tahay mudane Shaafir Raabi Kaahin gudoomiyaha rugta ganacsiga Jubbaland ahna xogayaha guud ee rugta ganacsiga Soomaaliya oo dabcan maanta marti noogu ah barnaamijkeena wareysiyada toddobaadka horey aan ugu sii socono mudane bal waxaan u galaynaa arrimaha doorashooyinka 2020 oo hadda aynu bilowgiisa ku jirro dhamaadka waxaa la rajeynayaa inay doorasho dhacdo doorashadii waxaan ka hadlayaa federaalka ilaa bilowga 2021 waxaa la ansixiyay sharci waxaa la sheegaa in sharcigaas ay ku qoran tahay in ay dhacdo doorasho qof iyo cod sidee u socotaa arrimahan doorashooyinku sida marka aad bal warbixin hordhac naga siiso aniga ka muwaadin ahaan aragtidayda doorashada haddii aysan dadkeeda hadda helin oo isu tanaasul siyaasadeed aan la helin oo siyaasiyiinta iyo isteediyada iyo federaalku ayna ka heshiinin sida maantaba galmudug ka dhacday 2 maamul in lagu dhawaaqay 10 maamul oo dawlad federaal lagu dhawaaqi doono sabab wax heshiis lagu yahay baa wax lagu meel marin karaa waxaan heshiis lagu ahayn wax lagu meel marin karo waxaan heshiis lagu ahayn haddii uu yiraahdo waan maroorsanayaa ku kalena wax kale uu maroorsanayaa laakiin wax heshiis lagu yahay baa fiican sida ugu wanaagsan marka loo baahan yahay in doorashada hadda loo wajaho adiga ra'yigaaga waa sida ugu wanaagsan waxay ani ila muuqataa in sidii sanadkii doorkii hore looga heshiiyay in looga heshiiyo ama cod hal isku raaco iyo sanduuq qof iyo cod ama doorashadii dad baneed hal isku raaco wax lagu heshiiyay inay